daawadayaal intaasi waxaan ku soo koobaynaa heestaasi aan filayayna si wanaagsan aad macnaha iyo murtida ka dambaysa aad u dhuuxdeen haatanna daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij kale oo runtii ah barnaamij aad u xiiso badan oo runtii ah mid aad u xiiseyn doontaan oo ah barnaamij sheeko ah sheekadaasi oo runtii uu soo diyaariyey Jamaal Cali Xuseen waxaana sheekadaasi ay runtii ay tahay sheeko aad marka aad macnaha iyo murtida ka dambaysa aad dhansantaan aad ka dhergi doontaan berigii ninkii hanuuniye loo oran jiray hees fanaanka ahaa ayaa hees uu qaadi jiray daal aragtideeda ayaa heestii 20 hablood isku qabsanay ana leeytiri markaasay u yeeranay yiraahdeen alli saddex kamid ah hablahaas markaa imaaraadka joogay inta u yeeran ninkii ku yiraahday war bal heestan yaa loo tiri markaasuu yaa khani maxaan ka kaasa qoftaas ruuqay ahayd markaa sheekooyinka ayaa lagu qabsanay imika qaar baa oran doona awowgii buu ahaa adeerkii buu ahaa marka aniga waa la sheego dadkii ii sheegay baan bahalaha isugu soo uriyeen qoray marka taasina waa afeefo maartay waa afeefanayaa ee hayga hadhe hadaba qoraalka ayaan in yaro qosla laftirkeeda aan ka sheegaya oo in fact sheeko buuga ku jirta ma aha waa sheeko markaan ingiriiska marnay oo noo sheegay anagoo Bristol joogay oo sheeko qosla weeyaan waxa la yiri nin baa buug loo dhiibay markaas war buuga soo akhri markaasuu buugii laba weey buu la maqnaa maalintii dambe ayuu kiisii ku war buuga ma akhriday markaasuu yiri dhaxdan maraya buugii markaasuu war hadda buuga afjar bal buu ahaa markaasuu yiri haya waan ka yaab adag haaye waxaan ku tusaysaa inaanu akhriin baa lagi marka waxaan rajeynayaa qaarkood aanay marka af Soomaaliga aan oran ayaa adag haaye kan waa af Soomaali weeyaan marka haddaan sheekooyinkii aan qaar u galo sheekooyinka qosolka ah way fara badan yihiin laakiin qaar baan halkan ku soo qorqortay aan maartay aan select gareeyay sheekada waxa weeyaan wati kubadda weeyaan sheekada waxa weeyaan waa sheeko wax yar kale hada wax yar sheekada waxa weeyaan sheekada xamar inta badan inta xamar soo martay waxa lagu ciyaari imikadana kullee waa lagu ciyaaraa waan maalnayaa baadka maartay xeebta agteeda ay dhalinyaradu kubadda ku ciyaarta oo balooni ku ciyaaraan marka sharad bay kala dhigtaan oo lacag bay kala helaan oo koox bay u kala dhigtaan marka waxa weeye waa arrin culus weeyaan runtii aan ciyaar weeyo marka lacag la dhigto balad maxaad malaysaa oo kubadda la ciyaarayo marka waxa jirta nin reer Boondheera oo aweys la yiraahdo inta badan isaga xariif ma hayno kooxda uu ciyaar jiray xaafadda maalintii dambe ayaa xaafadii kooxdii ay gelaya midba maqnaanaya gool buu dhalanaya halkii gool ba marka guush ku raacaysa kooxdii marka ninkii aweys ayaa arrintii wuxuu soo qaatay inay khatar inuu yahay mugti markaan afray xamar buu gelinaa accentkeedii waa in la geliyo waa in timaado marka aweys marka iyadoo bibitaayadii la sugu yimid oo dadka sheekaysanaya buu sameeynaya intuu sidii African American ka soo socdo markay maartay xaragoonayaan ayuu tusaaysigaado ayaa oo macawsna hoosti u geeyo ay qaar ku oranayaan aweys yaa khimaanta gool asku baxay marka gool baday naabtii maanta dhalsay markaasuu gool waas dhashaa laakiin say isku dhashaa baalku iska dhalin maaha moogta marka wuxuu doonayay in la weydiiyo si ku dhaliyay markaasay yiraahdeen aweys saayesh marka way doonayay sheekadu markaa bilaabay markaasuu undishaa soo karosa markaasaan ugu jeclay qolooyinkan imaaraad ku dhashay undishaa soo karosa antii wuxuu markaa leeyahay number 12 kiiba isoo laabay undisho aftalyaani number 11 ayaa isoo laadii usoo dhigtay kubaddi tartiib la xabadka lagu dejiyay la isma dhibay fiirsaya ko odu oo dhora ay soo khaad antii number 2 ee dhora gab alusi inta suboodi tartiib la turna laga saartay xayawaankaas waa isku daay ma soo laabayo
لعنتي واحد لي لعنتي وهذا كو marka difaac oo dhan sidoo maraygu ka sheekeynaya waqti marka wuxuu yiri ko oo tare ah number 3 harka buuxaas ahano orod aan lagu maray anta waa nin buuran oo de ma harba ka baxo marka boordi karayo marka isaga orod baan ku maray buu yiri marka wuxuu yiri quattro number 4 isaga wuxuu yiri taas ahano isaga ajir la saar isaga saas baa loo qabtay oo iska dhacay waqti wax dhuban weey waqti marka wuxuu maxaas ku soo haray boortiya ku soo haray goalkeeperki weersha la sagay weersha wala socod weersha la sagay waxa awra bal iska dhig ya بدل فيش حيوان كاس وحاس وخاطئ إنه بدل ربنا أكيد برجع روانا أنت ما كادك بس أنت كادك الآن أنت يقول لك ده خف سندها على أفكار وياك صفوس شاكر أساسا كنا مات والمركن حتى بقى واحد دوني أنا وحير شوي يرب دلائي نتصو واحد شرتا قبي ديجا أما قبي حيرك أو قبي أنت اللي تريي وقف سوي تريي أنت أنقرني وقف كان السكة الأوقاتي أي يدو لفت كده السودان تصومالي القرح كله رنتي أو واحد إن الحلقة قراء marka wili waxba laga ma qorin oo aanu maan arag runtii waxyaalo badan laga qoray laakiin halkan ugu maan tala galay inaan u tafaxayto aan arinta ka shaqeeyo laakiin bal example yar baan u soo qaatay oo laba ka mid ah oo dad kale ay sameeyeen si waxa yareen sida xariifnimada leh ayaan u soo qaatay marka mid ka mid ah ayaan tusi lahaa waxa jiray nin gabaya weyn caan ahaa oo Hargeysa iyo Berberiya deganaa oo la yiraahdo Umar Australia oo gabaya weyn ahaa ayaa wuxuu tiriyay gabay geela ku amaanayo iyo Soomaaliya sida geela u dhaqatay iyo sida uu fiican yahay iyo waxaas ay ku amaanayeen marka waxa jirtay Allah u naxariistay Umar Australia in gabaygiisa geela uu ka daba qaatay nin kale oo Allah u naxariistay oo la yiraahdo Ismaaciil Rusheey oo isna reer Hargeysa oo isna nin baa mushtari ahaa oo Hargeysa masaajidka weyn Hargeysa ku yaala masjid jaamaca waa ninka awlaadiisa iyo dhistay ee loogu magac daray ninkaas isna maqaaxi uu ku lahaa Hargeysa oo karaacinka karin jirtay karaacinka intaan garan maraqii karaacinka ayuu gabaygii geela ee uu tiriyay Umar Australia karaacinku waxa weeyaan intaan garanayn de lafahan maartay minjaha ariga minjaha ariga marka deynta lagu rido maartay la kariyo maraq laga dhigo ayaa maraq macaan buu ahaan jiro aad loo maartay bariyahan wax cunaa ma arag marka roodida aad loogu cuni jiro aad ba loo karin jiray marka Allah u naxariistay Ismaaciil Rusheey baa mushtarbaha marka maqaaxi caan ahayd oo Hargeysa ku taalay bariga horeeto oo marqa karaacinka aad ku ahayd ayuu gabaygii geela ayuu intu dheegto oo bedelo ayuu wuxuu bedelayaa karaacinkiisa uu bedelayaa oo halkii uu geela ku sheegay maqaaxidiisa ku sheegaya halkii uu maraqii ka hadlay caanihiina wuxuu ka hadlayaa maraqii karaacinka marka bal laba tudco yar oo ka soo qaatay oo ku jira bal hada eeg marka kii horena waa tusaya ka kalena bal sidoo bedelay hada eeg xariifnimada marka Umar Australia wuxuu oranayaa dool caana laga soo lisay oo yara dhanaanaaday marka aad dhadhamisaa jirka dhididku qooyay nin dhadhamiyay wuu garanayaa dhul ay qaboojaane waxa dhaba habeenka ninkii dhama galxoorkoodu qodxihii dhalaanimo ku galaa kaaga soo dhicay saas waa gabaygii horeeta tudca ku jiray Umar Australia bal hadaba eeg sidoo Ismaaciil Rusheeyna maqaaxidiisii ugu bedelay iyo karaacinkii wuxuu yiri dhuuxa karaacinka iyo dhirahan qooshaayo nin dhadhamiyay uu garanayaa dhul ay qaboojaane dhufashada malqaacada farxadii kugu dhamaataay dhumuq markaad ka siisaa jirkaba dhididku qooyaay waxa dhaba habeenka hadii roodhi lagu dhooqo qushki dhalaanimo ku galaa kaaga soo dhacay
waxaa jirta waxaan soo qaadanayaa sheeko ku saabsan ololihii af Soomaaliga bariga la dhigay ayaa waxa dhacaysa reer miyiga af Soomaaliga loo dhigay markaan iyo xisaabtii marka nin yarba oo isagu maartay dhalinyaro ah ayaa lagu yiri orado bal nimanka reer miyiga tuulada jooga bal ka soo dhacay xisaabtii ku ka jartii ya 7 ka jar ayuu ka dhacin kara waayay markii dambu tusaalo soo qaadayna markaa soo oranay markii xero ay 7 riyaad ku jiraan ay 3 boodaan maxaa soo haraya markaa wuxuu doonayaa inay yiraahdo 4 baa soo haraya mid reer miyiga gacanta taago markaa soo iga wallo riyahan ka qaadan dii mid boodo ka dabooday haddaba tii qurbaha haddaynu soo gallo sheekooyinka qurbaha iyaguna laftigooda aad u qosol badan waxa dhacaysa nin qaxooti lagu geenayo waddankaasi Mareykanka isagii reerkiisii ayaa guriga baranbaran meel noqonaya markaas oo oranaya gabadhii guriga lahayd ay naga kiraysa loo yeero gabadhii baa loo yeeray cadaanka ahayd markii gurigii soo gasho ayaa waxa arkaysa 3 baranbaro sidii baabuurta ka rayskiisa eryanaya ayaa iridu ku jiiray markaas inta saagu booday oo Jesus markaas oo naas soo socod boqolaal Jesus baa laga buuxay isagu markaa wuxuu qaatay xaj in la yiraahdo maxay Jesus-kii ay tiri ayuu qaatay in barabarada la yiraahdo hadda sheekooyinka laftirkooda waxay leeyihiin sheeko walba waxay leedahay hab adeegsi sida loo adeegsan karo ayaa xataa dadkan aan tusaaleynayna oo ma garanaysaa qofku uu adeegsan karayo dadka waliba particularly af Soomaaliga ku cusub yahay sida maamaada ay u isticmaali karayaan marka buuga la eegayo haddaan eegno mid kale fariimay wataan qaarkood oo maaha sheeko iska qosale qaarkood fariimay wataan haddaan soo qaado mid kamid ah halka iyadu fariintay wataa ay ka hadlayso musuqmaasuqa ya ay la dagaalamaysaa oo si yaro qosalana way ku tusinaysaa in mararka qaar dadku waxyaalaha dhici jiray haddaba nin kamid ah maamuladii dalka soo maray oo wasaaradda warfaafinta DG ka ah ama Director General ayaa waxa dhacaysa ay niman u shaxaatagayaan markaas oo oranayaan warbalniyahow maanta jaad iyo waxbaan doonayaa noo qaado markaas oo oranaya waryaaraha dhageysta markaas oo oranaya aniga 2 nin baa iga sareeya markaas waa wasiirka iyo wasiirka xigeenka marka waa idaacadihi mas'uulaya wasiirku xayisiisyada cunaabuuri waxa Allah li wixii xayisiis idaacada laga sii daayo wasiirka cunaabuuri wasiirku xigeenkuna ogeysiisyada cunaabuuri waxa Allah li wixii ogeysiis idaacada laga sii daayo xulaanu miskiin baan kii ugu hooseeyay baan tacsiidaha cunaabuuri marka wuxuu adeer marka 6 qof oo dhintay idaacada ka baqashaan adeer marka ay kaalay marka saacad qaal karaya marka waxa weeyaan sheekooyinka kale iyaga laftirkoodu xigmadda wata oo aad la yaabisid sida xigmadda ugu dhiibiyaan waxa weeyaan oday reer Muqdisho ah oo inay wiilkiisu Norway degan yahay ayaa waxa dhacaysa inuu wiilkiisa maalinta dambe la telefoon soo diray oranayo marka wuxuu ahaa oday maartay oday miskiin ah oo aad u fiican oo duco badan oo iimaan leh markaasuu ku oranaya aabo maartay gabaraan guursi soo war fiican ah sheegtay gabartii ay ahayd oo dhaw soo gabartaan waxay ahayd maartay soo gabar Soomaali ma aha gabar cadaan ah odayga gabar cadaan ah marka odaygii hadda bal sida farshaxnimada uu sheegay bal fiir sidii odayaasha Soomaalida ku muqayliyay markiiba mu boodin ibudlam bood wuxuu yiri areegaariyo waa fiican tahay guurkuna waa wax fiican ma xasata markii aan gurigeen deganeen suuqa xoolaha cidi dariskeena ma xasata markaas waa xasata cidaas yaa ahayd waa xasata duqi oo Sheekh Cali maxaas xoolaha ka qabiyo su'aalu soo weydiinay oday markaas dibiyo lahaa markaas Sheekh Cali dibiyo lahaa hay dibigaas maxaa ugu soo bin jiray Sheekh Cali wuxuu dibigaas sacayaasha ay dadka kale u keensan jireen ugu boodi jiray marka saasa lacag lagu siin jiray Sheekh Cali markaas yiri way markaas yiri war fiican waa si fiican oo xasuusta markaas yiri ma xasuusta cid waliga ma aragtay cid oo inta Sheekh Cali u timid dhahay dibigiini weyshin u dhalay qaata markaas yiri ma arag markaas igaari hadii aad dibigii Sheekh Cali Norway ka noqonaysid adle waay